يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولا ريال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم uma ogolin in gaal xun uu wax ka sheego, raallina kama naqon doono insha allahu tacaala. muslimiinta meel walbay joogaan waxaa la gudboon oo fiican inaan ka dhiidhino, maxaa yeelay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama koonkan dhan nabigii loo soo diray oo baraarujiyey oo laga bilaabo maalintuu soo baxay oo nabinimada la amray ilaa beriga aan joogno, ummadahan dhan oo adduunka yaacayo iyo noloshan oo dhan ayuu nabi u yahay, oo ilaahi subxaanahu watacaala nabi kale kabacdi sooma u dirin. waa nabiga ugu dambeeyey. diintayna macaan ee sunnada iyo qur-aankana waa sunnadii iyo qur-aanka ugu dambeeyey. muga yaanan ogolaanin in nin wax ka sheego ama gabar wax ka sheegto. asxaabii rasuulka sala allahu calayhi wasalama waa tii ibnu zubayr layidhi nabigu mugow istoobay oo iri dhiiggaan arihoor meel kusoo daadi oon qofku ku arkayn. ibnu zubayr banaanka u baxay, wuxuu isyiri dhiiggii nabi maxamed miyaad dhulkuu quurtaa? maya, waa soo cabiyey. ina yimid wuxuu array dhiigga ah aan kuu dhiiba suu iri rasuul allow waxaan kusoo qarsho uri meel aan cidna arkayn oo meel wax lagu qarsho maha ugu rayso. mugaasuu iri waa intee? asuu iri waa calooshayda damoo. muga maxabada rasuulka ayaa ka badatay. waatuu yiri ibnu zubayrow, qoftii dagaal kugu soo qaadana waa bacday, qofkii aad dagaal ku qaadana waa bacday. abubakar muu ahay saxaabiga asoo nabiga irida ka rogo oo waardiyeyhayo oo gaalada dhagartooda iyo shartooda ka waardiyeyhayo godaadadu cuntay dhiiggii ka yimi ilintii ka timiday ay nabiga maxamed sal alay wasalam qoys mugaasoo arxaa kugu dhaca soo waa lay cunay. intaasoo dhan yani maxabada rasuulka ayay ka aheeday. muga anunka uga haboon maanta, anunka ayay aheeday inaan saasoo kale uga murgoono. laakiin in nin wax ka sheego oo idaacado iyo jawhano lagu soo qoro kabacdina aan shib ka dhahno waxay kala mid tahay in aan raalli ka nahay. maxaa yeelay haddii aadan wax raalli ka ahayn inaad ka dhiidhisa ayay aheed, oo waxaadaad shib ka tiraa waxaa layidhi shibu raalliga ka wax tahay. intaynaan hadda fimilkeyna iyo reerkeyna in wax laga sheego raalli kama nihin. waxaa laga yaabaa haddii xataa wax laga sheego inaad ka dacwooto amba a ka dhiidhiso. nabi maxamed ka waran, nabi maxamed oo layidhi naftaada ka jeclaaw oo fimilkaaga kasoo hormari oo fiiri aayadda qur-aanka aamanuu adiicu llaahi wa adiicu rasuula. ilaaha lagu xijiyey ma ujeedaa? qul adiicu llaha wa rasuula. fiiri maha uu joogo maqaamka uu joogo damoo. muga inaan unkaan raalli ka naqan ayaan isku baraarujinayna insha allahu tacaala. nabiga ku sallino dharaar iyo habeen, haddii la kuurayaa saacad walba daqiiqad walba. man ra'aa minkum munkaran falyugayir biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan. oo waay xadiidka. muga munkarka haddii aadan suuli karin waxa ugu dambeeyaad ku suuliso waxay naqon karaan af inaad ku suuliso iyo inaad qalbiga ka nacdo. muga afka waa ku suuli karnaa. hadda haddaan idaacadaha ka hadalno, muslimiinta mudaaharaadaan, isku duubsamaan, xiriirka loo jaro faransa haddii alla ku roon yahay la cunaqabateeyo, ayagu waana cunaqabateeyaan. maxaa yeelay islaamka asigala in la cunaqabateeya ma aha, waa asna in wax cunaqabatey kariyo. ilan adduunkan dadkan ku nool ayaan daraf ka nahay, baawaraan ku leenahay, waxa ay qabtaan oo kalaan qabanaa, noloshii ku noolyihin kalaa ku noolnahay. ma ahan macnaheeda kaliya in sidii cunuga eeda koris ah asiga jawiya lagu taagsado. cunuga eeda koriska iyo cunuga hooyadiis noole la joogo isku si inta badan loolama tacaala mahayno he. muga eeda koris yaanaan naqanin, aan naqano cunug hooyadii iyo aabihiis la joogo, baawar leh, wax diidi karo, wax ogolaa karo. dadka haddii ala kuran yahay madaxda ah, cuqaasha ah, caaqileenta ah, shuyuukhda ah, haddii ala kuran yahay aqoon-yahanada ah inay arrintaas ka dhiidhiyaan.
waxaan isku dardaarmayna insha allahu tacaala waxaan rajayhaynaaba diin nacayb dad ay ka aheeday inay darteed diinta u soo galaan insha allahu tacaala. dad ay diin nacayb ka aheeday inay darteed diinta u soo galaan. maxaa yeele nabigu maxamed 24 saac waqtigiisii wuxuu ku baxshay sidii diintan ay hadda meesha ay joogto ay u imaan lahayd. maahane waa dhihi kariya anigu 8 saacaan shaqeeyahaa, 8 saacna diintan u shaqeeyahaa, 8 saacna waa jiifa waa dhihi kariya yaa qasbay. ilaa anunkaba hadda mugii layla diinta u shaqeeya waxaan dhahnaa anigu waxaan dhahnaa nololaan rabnaa ilmo iyo xaasan adeegi lahayn anigu 8 saacaan u shaqeeyahaa diinta kan ugu badanaa dhahayba kan kalena wuxuu leeyahay maani ma awoodaniyo anigu waa saacad ama 2 saacaan siihaa ama hadduu dukado ooba nasiib leeyahaba uma shaqeyna diinta. laakiin nabiyullaahi maxamed 24 saac ayuu wax u taagnaa diinta. 24 saac hurdo uga tegay, dhibaataa ku soo gaartay, haddii la koriyay dhaawaca loo gaarsiiyey, iligaa looga jabshay, dhaqaraa loo gaarsiiyey. intaasoo dhan kama ahayn xoolo, kamana ahayn adduunya jacayl, waxay ka aheeday kalimatullah hiya alculyaa. intaasay ka aheed in allah subxaana wa tacaala khayrka uu soo dhiibay, qur-aanka uu ku soo dejiyey, hadda waxyigiisa inay hormarto oo booska beriga ay joogto iyo meel ka rayso inay gaarto. saasay ahayd yani waay ulajeedkiisa. muga qof wax kuu qabto oo qof bini aadana oo beriga wax kuu qabto waxaan jecelna qofkaas inaan u mahad celino. qofkaas haddaad maqasho qofkii wax gaaray ka waran waa ka damqay waxaa ninkaas maalin hebel oo ibaxshee aan u gurmado, ninkaas maalin hebel oo koobshaha ii shubee yani aan ka ugu yaraan waa ka xumaahe. muga ka waran nabi maxamed 24 saac mugaad sallallahu alayhi wasallam mugaad waagu kugu baryo wuxuu yiri gacmaha dhaqa. ka waran muga waagu kugu baryo oo indhaha kala qaado wuxuu ku yiri gacmaha iska dhaq ilaa ma ogid gacmahaagu meesha ay bareen xalay. wuxuu yiri mugaad seexahayso aayada kursiga aayada ugu dambeeyo albaqro haddii alla kuuraya suuratul faatixa adkaarta isku akhri isku duuduub kabacdi seexo. qur-aanka oo dhan waxaad ka awoodda akhri yani oo adan waxba akhrina seexan. okay inta ka dhaxla ka waran halahaas inta ka dhaxlayso daqiiqad walbood qaado xadiis nabi iyo aayad qur-aan ka dhexeli. mugaad xunee waa ka dhexeli, mugaad socee waa ka dhexeli, wax kasta ood sameeyeyso tilaabtooda aad qaadayso waad ka dhexeliya. marka insha allahu tacaala waxaan isku dardaarmaynaa inaan nabiga jeclaano, ka hortagno waxyaalaha oo tashwiishka ku furaayo, ka hortagno idab darrada lagu haayo. nabi muxamedkii naacow, nabi muxamedkii naacow niyo aadne nabi muxamedkii naacow kulniyo naartaad galayso soo niyo. nabi muxamedkii naacow naartaad galayso soo niyo. naarad geli muga naarta ay ka naqahayso adugu kala dooro saciiro jahannamo adugu magac u bixi insha allahu tacaala. nabiga ku salliya in allaha wa malaa'ikatahu yusalluna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayh wa sallimuu tasliima.